runtii aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta sida wanaagsan ay fursada u jirto codkooda u dhiibtay waxaan rabaa inaan sheego waxaan ugu faraxsanahay inay tani tahay mirihii 14 bilood ee soo dhaafay xukuumadda badbaadada qaran ay ka soo shaqeynaysay inay meel fiican marayso inay meel gabagaba marayso in maanta hadda gabagabadii doorashada madaxweynaha aan ku jirno aad baan u faraxsanahay aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii iyo codkooda siiyay iyo kuwii aan codkooda siiyay inta loo mahadsan yihiin Soomaaliya meel fiican bay maraysaa aad waxaan u faraxsanahay 14 bilood inaan ka keenay meesha ay joogtay aan keenay meesha hadda ay marayso haddana u baahan tahay in meesha ay joogto laga sii qaado oo meesha ay istaahisho la geeyo ayaan aad jeclaan lahaa waxaan kaloo idin sheegayaa in anigu wareegga labaad aan ka tanaasulay aan geli doonin Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay isbedel waxay u baahan tahay horumar saas daraadeed waxaan aad u jeclaan lahaa in isbedelka loo eegiyo in horumarka loo eegiyo in Soomaaliya dariiq cusub ay qaadato ayaan aad u jeclaan lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.